Ku soo dhawaada falanqayntii ciyaaraha maanta gelinkii dambe oo casarkii 11 saac waxaa dhacday ciyaaro xiiso badan. Ciyaarta soo dhexmartay kooxda Arsenal iyo kooxda Leicester City. Ciyaarta soo Arsenal oo markeedii labaad ama gamekeedii labaad oo gurigeeda oo ku badisay 4-0. Ciyaar oo labada dhinac liska caabinayay ayaa Arsenal waxay ku karbaashtay kooxda Leicester City oo ka dhisan magaalada England, magaalada London. Ayaa ciyaar xamaasad badan ayay ahayd. Coach Arteta oo shaxdii kooxdii uu ku soo tagay ciyaartii hore uu ku ciyaaray ciyaartii hore uu ku ciyaaray oo Leicester City ay u dhaceysay Crystal Palace ayuu isla shaxdii ayuu ku soo galay. Gabriel Cisse ayaa wacdar ciyaarta muujiyay 2 gool oo mucjis ayuu dhaliyay oo goolka koowaad goolkiibaha ayuu khiyaanay ciyaar oo jibin oo jaf oo banaanka ayuu ka toogtay. Goolka labaadna wuxuu ahay madax halftime waxaa ku kalastay 2-0 ayay Arsenal ku kalastay. Arsenal oo rajadeeda aad u sii fiicneed ayaa haddana xilli dambe ciyaarta dambe ayaa hal gool laga dhaliyay. Haddana goolkeeda saddexaad waxaa u dhaliyay Xhaka ayaa u saxiixay, halka goolkii saddexaad haddana Arsenal goolka labaad laga dhaliyay gool iska dhalisay ayaa waxay saamaxday. Marka hadda ciyaarta goolka afraadna Arsenal waxaa u saxiixay ciyaaryahanka da'da yar ee Brazilianka Martinelli ayaa u saxiixay goolka afraad Arsenal. Waxayna Arsenal ku soo idlaatay ciyaarta 4-2 oo Arsenal kaga adkaatay dhiigeeda Leicester City. Talow Arsenal ciyaartan horyaalkan ma qaadi doontaa mise way gadaal dambe xiliyadeeda hore ee gadaal dambe ay ku fi doontaa. Arsenal oo dardar ku bilaabatay horyaalkan aan aragna bal wixii dhici doono. Ciyaaro badan oo xiiso badan ayaa dhici doona ciyaaraha dalka ku xigo. Waxaana soo falanqayn doona ciyaarta kale Man City iyo Bournemouth iyo Manchester United iyo Brentford ayaa ciyaaraha tala soo dawin doona. La socda ciyaaraha iyo mashruucyada cusub.